ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa daafuray kulanka wada tashiga qorshe wadaagga guddiga wada xaajoodka iyo hay'adaha ku shaqada leh siyaasadda loo dhan yahay oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaare Khayre ayaa sheegay in shirkan uu muhiimad gaar ah u leeyahay ummadda Soomaaliyeed lagana doonayo ka qaybgalayaasha in ay la yimaadaan waxqabad muuqda si natiijo wanaagsan uga soo baxdo hawsha aad isugu timaadeen. Waxa ay ka turjumaysaa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed waa buddhiga qarannimada Soomaaliya. Waxa aad isugu timaadeen sidii ummadda Soomaaliyeed aad ugu sameyn lahaydeen mustaqbal ka duwan kan aan hadda haysano, ayuu yiri ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Meeshan aad fadhidaan waxa ay ka turjumaysaa in aad fursad u leedihiin in aad qayb ka tihiin qaabeynta dastuurka iyo ummadda Soomaaliyeed 500 oo sano ee soo socota. Waxa ay ka turjumaysaa in aad ka araninsanaysaan ummadda Soomaaliyeed sidii awoodda gacantooda loogu soo celin lahaa oo 2020 doorasho qof iyo cod ah ay ugu dhici lahayd dalka iyo in la dhameystiro geedi socodka federaaleynta. Waxa aan rabaa in maalmaha aad halkan isugu imaanaysaan aysan idinka xumaanin saacadii, in aysan idinka khasaarin maskax shiil ayaa halkan la isugu yimid, ayuu ra'iisul wasaaruhu kula dardaarmay ka qaybgalayaasha kulankan wada tashiga qorshe wadaagga guddiga wada xaajoodka iyo hay'adaha ku shaqada leh siyaasaddaas loo dhan yahay oo ay ka qaybgalayaan dhammaan hay'adaha iyo wasaaradaha ku shaqada leh tubta siyaasadda loo dhan yahay ayaa lagu talagalay in uu socdo 4 maalin uuna soo xirmo 8 bisha July. Cabdirasaaq Kaahi Miftaax, telefishinka caalamiga SBTV, xaryaha qaxootiga Dadaab.